الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلهي سبحانه وتعالى أمان يما هذا نسكله نبي محمد با أمان ينبتقليه ينحريس بكركيسا والسقناتي إن إلهي سبحانه وتعالى وكياله إساقي إنتي وناقا كراعدي صحابتيسا تابعينتا إلى يوم الدين. إلهي سبحانه وتعالى محله مرك ليلي والسابقون الأولون من المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاولي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إلهي الرسول كي سبا وحي آيادا iyo xadiidkaasi kaga waramayaan ama ay ku tilmaameen wax kamida wanaagyada iyo tilmaamaha fiican ay leeyihiin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam asxaabtiisi iyo ardaydii Nabi Muhammad uu rabeeyay ardaydii Nabi Muhammad uu ku aaminay inay waxiga iyo diinta gaarsiiyaan aafaaq العالم jihooyinka kala duwan ee caalamka. xalaqaadkan aynu ugu magac darnay si guud difaaca diinta iyo gargaaridda xaqa waxaanu ku soo qaadan doonaa ama aynu kaga warrami doonaa xuquuq saxaabatu rasuul ridwaanullaahi calayhim xaqa iyo xuquuqda ay nagu leeyihiin haddii aynu nahay baqiyatu al-umma ummadda Nabi Muhammad inta kale oo ah intii ka dambeysay ilaa maanta oo aynu hadlano. haddaba saxaabatu rasuul ridwaanullaahi calayhim fadaa'il fara badan bay leeyihiin sida aayadaasi uu tilmaamay xadiidka rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay. maxaynu marka uga hadlanaa inaynu ka waranno fadaa'isha iyo wanaagyada ay saxaabatu rasuul ridwaanullaahi calayhim ay leeyihiin? waxaynu uga hadlanaa laba qodob ama laba arrimood. qodobka koobaad in ay ahaayeen saxaabatu rasuul ridwaanullaahi calayhim wali haddaana ay yihiin ahaana doonaan kuwii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nabigiisa u dooray inay la saaxiibaan awliyada iyo muttaqiinta hogaamiyaashoodii ah dadka muhtadiinta ah iyo hanuunka iyo wanaaga iyo dariiqa xaqa ah doonayaana kuwa ay ku daydaan bacda rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam in ay yihiin kuwii Ilaahay rasuulkiisa u gargaaray. ilaahay gargaar uma baahnaa diinta uu soo dajiyay ku imtixaamay cid uu gargaartay in Ilaahay u gargaaro cid aan u gargaarinna in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka argoosto. sidoo kale waxay ahaayeen kuwii diinta inoo soo xambaaray. sidoo kale waxay ahaayeen kuwii diinta ilaaliyay in diinta ama wax lagu dhex daro ama la dooriyo ama la bedelo. waxay ahaayeen jiil iyo dad fac dunida soo mara kuwii ugu khayrka badnaa uguna wanaagsana. kuwaasi waa tilmaamaha iyo wanaagyada ay leeyihiin ee nagu kalifaynayno ka hadalno xuquuqda iyo xaqa ay nagu leeyihiin saxaabatu rasuul ridwaanullaahi calayhim. dhinaca kale haddii aynu ka istaagno waxaa jira dad iyo fara badan horeysiyo dambeysaba u banbaxay inay wax ka sheegaan ama ay dacniyaan cirdiga iyo xaqa ay leeyihiin saxaabatu rasuul ridwaanullaahi calayhim. kuwaasi oo kala duwan shaararkay xidhan yihiin kala duwan laakiin meesha ay wax ku tuurayaan ama ay ku ganayaan ama ay wax ka sheegayaan ay tahay meel waaxida. waa gaaladii waa munaafiqiintii waa shiicadii waa calmaaniyiintii waa mulxidiintii waa qur'aaniyiintii iyo abnaa'ul muslimiin qaar kamida oo ku kadsoomay shubahaadka kuwaasi ay habeen iyo maalinba shubayaan iyagoo u noqday dhibanayaal tawaasul ijtimaac ama meelaha loo yaqaan social media. inahaasoo isku tagay oo duraya ama wax ka sheegaya saxaabada waa qodobka labaad ee nagu kalifay inaynu ka waranno ama aynu ka sheekayno saxaabatu rasuul ridwaanullaahi calayhim. isagoo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam fadaa'il fara badan u tilmaamay ilaahayna fadaa'il fara badan u sugay. haddana Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam xadiidkaanu soo qaadanay wuxuu ku tilmaamayaa Bukhariga ku jira khayrun naasi qarni waxa adduunyada ugu khayr badan qarnigayga waa jiilkii Nabi Muhammad saxaabatu rasuul ridwaanullaahi calayhim. jiilka labaad ku xiga waa taabiciintii
jiilka saddexaad ee ku sii xiga atbaacu taabiciinti waa alquruun almufaddala waa saddexda qarni ee la fadalay ee rabbi rasuulba ay raalida ka noqdeen wanaagadii iyo khayrkii ay qabanayeen idan halka waxaan ku fahanay sababta aynu mowduucan u aqidano ama aynu qabanano iyo ahmiyada ay leedahay qodobka aynu ka hadlano iyo dadka aynu ka hadlano xalaqaadka dambe aynu kaga warrami doonaa saxaabi maxaa la yiraahdaa cadaaladii saxaabadii ugu hor rumaysay rasuulka sallallahu alayhi wasallam tiradoodii oo culimada qaar sheegaan ugu dambeyn waxaanu ka warrami doonaa fadaa'ishii wanaagada ay leeyihiin deeta xalaqaadka dambe aynu saa u sii wadi doonaa inahaas baan ku soo gabagabeynaa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk wa jazaakumullahu khayr